haddii inuu qalbigaagu nool yahay aadan cali oo inan dhalinyaro askari wuxuu la dhibaatoonaya la rafaadaya la walbahaaraya dhaawacay xanuunka ku sii fidaya ee muddada dheer jeelka ugu jira isagoo dhibaataysan walaalayaal aan taageerno kow in aadan silsilada laga furo shalay markuu caafimaadka qabay waxa uu dhaxanta gabadanada gaajada haraadka iyo kulaylka ugu doorbiday inaad adigu dhaqanto oo dhirigto oo nolol fiican ku noolaato oo uu ku ilaaliyo ammaankaaga ilaaliyo maanta miyaanu u qalmin inaynu garab istaagno walaalayaal way hawl yartahay maanta sida aadan loo badbaadin karaa madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo xukuumaddiisii waxay dhalinyarada u qoondaysay laba barnaamij oo loogu talagalay arrimaha dhalinyarada marka ay dhibaatadan oo kale dhacdo waxa jira mashruuc miisaaniyadda dhalinyarada ugu jira oo loogu talagalay arrimaha dhalinyarada iyo sidoo kale sanduuqii dhalinyarada walaalayaal labadaasba waxa ka yimaadaan cashuurtaada miyaanu aadan u qalmin maanta in cashuurtaada lagu badbaadiyo oo budgetkii dhakhtar lagu geyn lahaa walaal cashuurtaada arrimaha dhalinyarada loogu talagalay in lagu badbaadiyo miina noqonayn bulsho oo abaal gudda ku heegankeena ugu jira walaalayaal sidoo kale aadan walaalkii isagoo qaranka difaacaya ayuu ku soo dhaawacmay isaguna waa dulyaal xaaladada ku jira sidaas darteed walaalayaal aan taageerno laba qodob oo kala ah kow in aadan silsilada laga furo iyo in aadan cashuurtaada loogu talagalay arrimaha dhalinyarada iyo miisaaniyadda ugu jirta iyo sanduuqa laga saaro qarashkii lagu daaweyn lahaa ee dhakhtar dibadeed loogu qaadi lahaa si noloshiisa loo badbaadiyo walaal waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan dad badan gaarsiiso oo maanta aynu damiir iyo dhiig isku yeelo aadan sidii loo badbaadin lahaa nafsadiisa aynu badbaadino والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.